بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ما أنت وحن روائنا أن عالمك وحشيغو وحن وشيغيا قديد كجرتو دولك الصومالي قلبيت قارهان دالكش مقالة خلافة إيريا ديدا أنا وحن كترسلنا هاي قبيلة كنول خلافة وحن هاي قرب جوكتا كترسل دادكاس ومدى خلافة وليبا وحن هاي قدوميها قرب جوكتا ومدى ريشابيل waxaan cabdi cumar markii la soo saaray waxaan u maleynayay nin walaalkayna ah wadanka u soo kacay ee maartay umada Reeshabelle iyo kulli umada ay isku mid tahay ogaadeen ceelal badan oo u qoday dhul badan oo jidad badan oo ka baxshay dhulkayna wax ceelal laga qodayna ma la jeedna laga ma bixinin waxa loogu soo daray in guriyahooda laga barakiciyo laga gubo ay u qaxaan sida Puntland gobolada dhexe markii ka soo shaqeysanayso noqdaan ay gudaha xuduud Soomaaliya in la qabto oo dhar guduudan loo xiriiriyay ihraab baa tahay dib loo weydiiyo madax furasho iyo dhac iyo dhibaato xuduudada ay ka jirto cabdi cumar haduu imaqlaayana waa imaqlaya haduu soo maqlayna hay maqlo waxaan ku sheegayaa cadaalad hadaa tahay oo nin oday oo wax garana ah tahay waa inaad arrinkaas hadaadan ogeyn aad dib ugu noqotaa oo fiirsaa xuduudka umada Reeshabelle ay la leedahay ee dalka Soomaaliya dadka jooga inay furtaan oo dadkoodii dhalinyarada ay caadi ugu soo noqon karaan dhulkooda oo lagu dhibaateynayo eedas aday ku raacaysa eedas mid taariikhda ku galayso weey hadii aad noqon lahayd sida aad dalkaas ugu bilowday cilal qodida aad dhulkayna soo qodeen maanta taariikhda annaga waxaan kugu qorleen meel wanaagsan ay ku gaarsiinaysaa laakiin waxa dhibaato ah in dadkayna barakicin iyo beerahoodii damac u ka gala dadka qaarkii waxaan leeyahay cabdi cumar waa inaad ka waantooda arrintaas aad dib u fiirsaa mas'uuliyadda aday ku saaran tahay mise waxa ka bilaaban doona isnaceeb in dadka Reeshabelle ay hubka qaataan oo in dagaal ay isu diyaar gareeyaan iska difaacan cadawga hadda maanta dhibaatada ku hayo umada Reeshabelle annagana waan ku wacyi gelinaynaa inay dadka iska dhiciyaan hadii aadan si dawladnimo ah oo wanaag ah cadaalad iyo ixtiraam iyo Soomaali iyo waxa naga dhaxay hadaadan dib ugu soo noqono wanaag aad ku wanaajinin maamul wanaagaada waxay noqonaysaa annaga inaan dib halgan u bilowno oo dhibaatada halka ka jirta aan ka ciribtirno insha Allah annaga qurbo joog baan nahay mudda dhulkayna waxaan doonaynaa inuu noqdo dhul sida dhulka Soomaali galbeed oo kale uu noqdo mid ma aragtay horumar xagga aqoonta tacliinta waxbarashada ay horumar ka gaaraan intaba ma hayno khayr badan aan idin rajaynaa umada oo Soomaali galbeed waliba umada Reeshabelle qaas ahatan dhibaatada waa inay sida